salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada janalkeena walaashin Anisa Isteel oo idinla ciid mubaarak dhammaantiin. Kulla caam wa antum bikheer, meel walba joogtiin caafimaad iyo nabad qab ku ciida insha allah. Asxaabta igu xiran maanta waxaan idiin wadaa jikadan clean up gareyna insha allah. Clean up yar ayna idiin wadaa insha allah. Xalwadii buskudkii macmacaanadii way isku soo wada xigaan insha allah. Sanka isku soo haayaan waan soo gelinayaa intaana ciida la gaarin. asxaabta quruxda badan igu xirneed ka raali noqda, muddo dhan waa iniga maqnaa insha allah. waa mashquulay hadda laakiin waxay ka bilowday insha allah si joogto ah sida hore iga barateen bayaan iskula soconeynaa. isla socod wanaagsan. jikada hagaajinaya maanta oo bacdeen buskudkii macmacaankii iyo ciid isku diyaariskan ku jira insha allah. waxaan hagaajinayaa qaanadii spicekan soo daadiyay insha allah. wixii iga dhacay, wixii wasaqa, wixii dhamaaday, wixii dhan waa la taraasha, wixii kale nadiif u baahanahay si organize ayaan u dhiganaya insha allah. waxaan u maleeyaa sharaxaad badan uma baahna. clean up gabar walbo sida jikadeeda u hagaajisato way taqaanaa, laakiin dhiirigelin ayay iga tahay insha allah. ka faa'iideysi wacan. marka waxaan hagaajinayaa hadda qaanada spaceyada insha allah. waa aragtaan wixii kale u maleeyo inta badan cad ma saaraayi. waxyaabada u maleeyo inaad u baahan tihiin oo kale inaan ka hadlo insha allah. inta kalena iska daawasho wacan. asxaabta quruxda badan biliis haddaa janalka ku cusub tahay subscribe dheh. haddaa hore noola joogto waa ku mahadsan tahay daawashadaada. like saar, sii share garay insha allah. asxaabteeda quruxda badan waa idin xiisa, waa idin jeclahay dhammaantiin. waxaan hadda hagaajinayaa bacyahan. waxaan u maleeyaa waxyaabo waxaa waaye haddaad meel si fiican u dhigtidna maasha allah. bacyadan waxaan hagaajinayaa hadda. bacyaashan hadaad wallaahi meel badan ay kaa qaadanayaan. hadda caagana u helay maasha allah. waa ra'yi fiican, idinkana ka faa'iideysta insha allah. saas ayaan lastiigi yarka ugu xirxirayaa. caagaas ayaan deeqsiinaya maasha allah. ma maleysan kartid inta wuxuu iga qaadayo. hal meel ayaadna dhigaysaa maasha allah. markaad u baahatid caagagaa soo dejisane waa kala baxee waa ku celinaya meeshaad. ma fahanteen? okay maasha allah. ka faa'iideysi wacan. asxaabta quruxda badan waa idin jeclahay dhammaantiinba meel walba dunida caalamka ka joogtaan. caafimaad iyo baraara ayaan idin rajeynayaa insha allah. la socdaa. sidoo kale waxaan soo baxsanaa bacyahan ziploga ah. strogas waxaa jeexmatay bacdeeda, marka safe ma ahan, waad ogtihiin idinkaba. waxaan gelinayaa 2 bac oo ziploga ah. sidaas ayaan ugu xirayaa laastiga. waayo wax la isticmaalayo one time use waa inkastoona la dhaqin, haddana waa inuu meel safe ku jira insha allah. sidoo kale laastigii eegana ziploga gashanaya u baahanahay. bacyadaas oo kale markaad furtid afkay kala qaadaya mararka qaar. saasa u gashanaya insha allah. mikrofoonkayga soo dhuma halkan ka helay. marka waxyaabo badan aa jiraan isdhex barbaryaac ah. markaad waxyar haddana kala hagaajisid maasha allah. aragta halkaas ayuu deeqay. waa sharaxaad badan uma baahna, saan hore idinku sheegaba insha allah. dhammaysta videoga waxyaabo badan waxaa laga yaabaa ra'yi aad ka heshaan. sidoo kale anigana wax ra'yi aad ila wadaageysaan hoos igu soo qora. ha iloowina commentiga, waa dhiirigelinta koowaad. asxaabta quruxda badan maasha allah. qaanadeena sida ayay kusoo baxday. wax is carcariirinayo ma lahan. xabad walba meesheedaan dhigay. waxaan u baahnayn waan tuuray. jikada insha allah sidaas oo kale yaala idinkana. halkana waad aragtaan storage-keygii. isagana waxaan dhan waan soo daadinayaa. wixii dhacay waxyaabada qaar aan u baahnayn ka maarmi karo waxaa dhan waan daadinaa. waxyaabada u baahanahaana si fiican oo iskula dhigaa isla eg maasha allah.
daawada insha allah inaa wax ka faa-iidin waxaad ka faa-iidin wax inaad ka faa-iidina laga yaabo insha allah. isku soo duceyna asxaabta quruxda badan aan isdhiirigelino. waad aragtaan storageka dhan waan faaruqiyey, haddana sidaan u dhigi doono maasha allah. waxaa soo alaaba iga haya jikada dhan alaabaa qaadatay, waxaa dhan waan ku gurayaa, waxaan u baahneen na waan dhigayaa. saasa arkaysid storageka si nidaamsan aan u dhigi doono insha allah. wax fara badan wixii meesha faraha badneedu buuxday in yaroo kooban ayaan kasoo koobaya insha allah. isla socod wanaagsan asxaabta quruxda badan. maasha allah kaameramankaygana geesu iga caawinaya. caagaasii dhaqaya maasha allah, si fiican u daawada. waa weelashan sokorta iyo burka iyo aan ku ritaa, aan ku shubtaa. waayo baakadyada iyagana culeys gooni waaye, wasaq gooni ah. markaa meel ku ridatid baa burki meel oogu tagtid, sokorti meel oogu tagtid, bariiski meel aad ku shubtid, howsha way kaa kala fududaane. waxbad walba meeshiisa ha loogu tago inaa ugu tagtid ayaa fiican asxaabta quruxda badan. tusooya maasha allah kaameramanka geesiga caawinayo. sidoo kale mashiinada yaryarka ah oo meelo qaar qaadeen carada ka batan dhibka walaalo meel qabtiin walaalayaalo. mashiinada marka ayagana waxaan usoo qaaday caag yar, dhexda waxaan u dhigay geedka buskudka loo dhigo maaragteen cadka ah. halkaasaan deeqsiinaya iyaga dhowr xabo oo yaryar ah. kan shaxa lagu kariyo la saaro ama biyaha lagu koreysto, mashiinta qaraaca keega ama waxyaabada qaartan heelka lagu shiito, waxyaabada aad isku jirjir ah yaryar ahoo fara badan oo meel walba qabsadeen way dhibeen wallahi jikadan. sidaas oo kale u hagaajinaya iyagana halkana u helay. waa ra'yi fiican, idinkana ka faa-iideysta. caagaas lena dhexgalgelinaya, waa kasoo baxsanay haddana waa ku celinay, waa tirtire maasha allah. meel badan maba kaa qaadanay. tana waa tii masaasada ilmaha loogu karkarinaya caanaha. nadiifi soo bixi ku celi meesheeda le. waa marka hore qaanadana feede xabada indhaha soo geeday, taa kala feede mid kala soo jeedo, meel walba saasay iiga bateen. hadee marka raayigana u helay, idinkana inaad ka faa-iideysatiin aan rajeynaya insha allah. malaha waa 5 xabo ama 4 miya, waa 5 mashiin. iyagana meelaan geliyey. koobabka waxyaabada naqliga ah iska tuur. waxyaabo waxaa jira aan isticmaaleyn meelahana kaa buuxinaya insha allah. guriga nafaas u dareema xabad daad isdhexdaa leele waad ka maarmi kartaa, ama ma isticmaashid ama aad kaasoo horbooda aad ka helin tuur. anaa ku dhahay waad ka nafisay. daawooyinka ilmaha meel dabka ka fog, waxyaabada fridge ka gelin, xanuun baabiyada teenolka oo kale, fitamiinada oo kale, caagaasaan u hel ayagana. maanta caagay ka shidan tahay, waa arki doontiin wax badan ka faa-iidi doontiin. halkaas la ugu tagay xabada u baahanta waa soo bixinay insha allah. sidoo kale haddaad ciyaal leedahay, masaasadaha ciyaalka leen dhowr xabad ka badashay aad isticmaashaa jiraan, waxyaabada isdhaaleele ma isticmaaleysid tuur ayagana. anaa ku dhahay masaasadaha ciyaalka sidii u kala leeyihiin labo, aniga 4 ciyaalan qabo maasha allah, ilaahay ii deysto. labo masaasadahooda caagan ku ridaa, labada kalena caagan ku ridaa. hadee marka magacyadooda ku hor qoran kartaa. marka kan wixiisa u baahan tahay masaasadaas waxaa soo dejisanay caagooda, waa ka baxsanay waa isticmaale.
waa ku celinaya haddana waa dhaqdhaqeen maasha allah. waa waa si fudud maasha allah, ka faa'iideysta. okay masaasada ciyaalka yaryaraayana iyagana sidoo kale waan ku gurayaa. waa aragtaan sida kusoo baxday, meel kaa buuxsamaysa ma lahan. masaasad qaanadaha qaadanaya haddaad dhahda qaanada sida koobabka ugu sharaxa waa daalele ina caag weyn usoo gadida kuuroon sidan oo kale maasha allah. waa ka nafisi doontaa sida anigaba ooga nafisay. kor ayaa saaraya koobabka korkooda, labada caag oo masaasada saas iskugu celinaa iskugu xijinaya. hadeen caagi daawadana waa kaasa maasha allah. qaanadaasna halkaas ayaan oga gudbeynaa. waa aragtaan sida quruxda badan ee kusoo baxday. dhaladan iyadana biyaa loogu talagalay laakiin aniga saliidaan ku shubtay. saasoo kale dhac waa ka shubanaya waa ku ceshanaya waad isticmaale. qaanadaha kow lagama joogo wali. okay qaanada digsiyada daboolada tarmuusyada qaanadan ayaan hoosna waxaan dhigay waxaan ku dhajiyay bacyaha dhago ayaa iska geliyay. sidoo kale qaadooyinka baashas aragtaan mindiyaha malaha si qaldan hadda u dhigay. haddaa lacala mindiyaha weelka guraysid afkooda hoos kor ha aadin sida anigaba hadda aan sameeyey ma haboona. afka hoos aadi dabadooda dambe kor ha soo aado. qaanada xigtana wataasaa tii saddexaad spaceyadana waa taasaa maasha allah. waxyaabada keega macaanka ku sameeya qaanada yartaas igu jirtaa marka maasha allah. wad fududaan adiga dhanka jikada adduunka ilaahay guri haddaad rabtid inaad guri ka aarsatid organize ka dhigtid jiko iyo dhar labadaasaa ugu daran jikada. sidoo kale maqliyada waa aragtan ayagana sidaas oo kale ayaan u hagaajistay. baashan $3 miyaan kasoo gadan saasaan jeclahay. waa $1 lacag badan ma ahan laakiin wax badan ay kaa qabane. qaadooyinka aluumiyada waxyaabada jikada aan u isticmaala ayagana hashaa qaanada iskugu geeyay si fiican aan u kala dhigay maasha allah. waxyaabadii kale ayaga yaryarkan ahaayeen waa kaasa. waa ka storagekeyga waa aragtaan caaga mashiinta cabitaanka bariiska sokorta timirta ayagana caagan gashtay. waxyaabada kale caanaha ilmaha waxyaabada baastajiisyada caaga weyn oo madow oo hoos yaalo wax alla waxaa iigu jira biyahan kor saaray laakiin hoos waxaa ku jiro bariiska wixii soo haro burki wixii soo haro ayaan geliya maasha allah. meeshan kalena wada aragtaan faa'iideysi fiican asxaabta quruxda badan jikadii oo dhammaystiran oo kudi organize aan ka dhigay xabad walba meel aan ku hagaajiye. ma wareereysid koob meeshiisa tegay saxan meeshiisa tegay qaado meesheeda tegay. laakiin haddaa dhahdid kooba gooni u raadina xabad masaasada raadina mindiyaha raadina qaada raadina waqtiga baraadiska ka cunaa maho ka cumaanaan dheh Soomaaliya ewer lagay asxaabta quruxda badan wixii dhaca qalad maahan insha allah. koobkina waad aragtaan masaasadihii kor ayay jiraan ayagana. jikadaas sidaa ka dhigatid waa fududaane markaa xabad walba meesheeda ugu tagtid shaqadana way kaa fududaane insha allah. adigana sidoo kale inaa yeeshid markaa laakiin hagaajisid waxaan idinka dardaarmayaa xabad walba ay isticmaashid halkeeda inaad dhigtid. laakiin haddaad dhahdid waa hagaajinayaa xabadan kale hadhow kama gaari qaanadaas way isku dhowdahay leetan kale aad dhigtid wixii dhan isku barbaryaac u noqona insha allah. sidoo kale waxay idinka faa'iideynayaan bacyahan waxaan ku dhajinayaa ovenka gadaashiisa. waxyaabada suugada waxyaabada faniinka ay kaa reebeysaa. okay way badan yihiin labada kalena meel ku dhajin rabaa. marka hore tirtir nadiifi markaa tirtirtid kadib
kaamiramankeygii xaajigayga caawinayo maasha allah. halkaa tirtir nadiifi وبعدين ku dhaji laakiin adigoo tirtirin ma dhageyso waa wasaq iyo wax ay leedahay ovenka dhanaan soo jiiday hoostiisana waa soo nadiifi fursad ayay ahayd oo ovenka hoostiisa ku nadiifsado waxaa soo qashinaan ka soo bixiyay waa nadiifiyey ovenka hoos iyo geesaskan ka dhaqay waan ku celiyey mac salaam kaasa maasha allah wixii suugo faniinay waxa kala dhammaan waa baalada kale ayagana meel kale aan dhigi doonaa sidoo kale birtan ayadana digsigaas qaadooyinka mindiyaha inta iyo caaga saliid iyo digsiyadaas ayaa ii saaran maasha allah ayadana way ii caawisay waayo saliid haddii halkaas saarnayn lagama shuban karo caag weyn oo meesha ka buuxinayo oo guriga gees ka qaadanayana ma fiicno okay ani raayi ahaantii dhaladaas ayaan ka helay wayna ii